caawinaysa hooyo soo dhawo marka hore magacaaga iyo deegaanka aad nagala soo xiriirtay aniga magacayga Kaaha Cabdi Aadan maama Kaaho Cabdi Aadan si fiican waa yahay maama waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Linter si fiican halkee naga soo booqatay deegaankee waxaan ka soo booqtay wada jir biyo digeenka yaan ka soo booqtay hooyo ka maqan waxaa iga maqan Maxamed Cabdi Sheekh markii aad weynaysay meeqa sano jir u ahaa 16 sano jir umaliya hadda si qiyaasta 16 jir qof lumi kara ma ahan ma luma aha meeqa sano wax qabtay ma aqaan asoo wax barasho ku jira iska baxay meeqa sano ka maqan yahay wuxuu maqan yahay 16 sano hadda waa 32 jir waay saasa hadda qiyaas markuu baxay wuxuu ay 16 baa dhaaday ما يستاس قياس ترى يعني معناها وقرتي ويلكاga see lagu waayay waxa lagu xamar wax barasho ag jire wax barasho soo kacay kadib waa baxan maqlay tu aadal u dhahay waxa la yiri waxas aaday Yaman marka Yaman baan ku maqlay adiga doontu raacal maqlay kadib hadan waxaan maqlay yarkiyo ku jiro meel oo wax barasho ah marka wax barasho Yemen oo waxa isku jiray xarada maxay dhahan Al-Qads yaan marka aan ku maqlay dhowr jeer baan isoo sheegay laakiin wax war kale oo asaga xagiisa ka maayo waayahay muddada wiilkaaga uu maqan yahay waa muddo fog wiilkaaga sawir ka haysaa maya ma waxba kama hayo Soomaali ka wiilkaaga qabiilkiisa biimaal ismiin marka hore wiilkaaga ma Madiina u degnaa isagana mise والله أنا حافظ كدقنا حمر كان ما أخان لكن تو جوج المغالدة جو حال مو جوج كو حكسوتها مركو كوري هيا marka wuxuu imaaday xamar imaaday laakiin xaafadu ka joog ma aqaan saas qalad ka san leeyahay adiga kulma joogin ma ani ilma joogin ayo la joogilkaaga wiil cida kale oo adiga wuxuu la joogo xamarka indagano oo adiga habar gidar ani ma aqaan wallahi ma ka yiin laakiin cidaas buu la joogo iskala joogay wiil kale saaxiibay wiilka oo cida guriga leh baa saaxiibo ahay waan israaceen abis manole wiilka abi waa noolay nolol ku ogaay laakiin hadda ma aqaan waayahay wiilkaaga markii aa weynayday inuu guursaday amba xaas lahaa amba caruur lahaa lagu sheegay haye xaradu ka baxay baa la yiri xaas buu yeeshtay caruur uu yeeshtay la yiri waa markuu baxay kadib haye horta waxa lagu sheeg jiray xara Al-Qads ay dhahan kadib haddana waxay dhahay waa ka baxay xaradii waa guursaday xaas buu yeeshtay caruur buu leeyahay bal hooyo wiilkaaga fariin u reeb la hadal haduu ku daawanayo maxaa u sheegi lahayd waxaan u sheegi lahaa dadna maqal iyo muuqaal dimeel liga arka macnaa inay muslimiinta oo dhan ana meel dalka iyo dibadaba ku caawiyaan ninkii haaya caawiyaan in ninkii maqal iyo muuqaalkayga qofka arko inay caawiyaan doonayaan isagana maxaa leedahay asagana waxaan leeyahay hooyo ila soo xiriir meel dalka iyo dibadda meel aad joogto macnaha ila soo xiriir aniga xamar baan ku noolahay xaafadaas aan ku noolahay lambarkayga waa kana la soo xiriir insha Allah tafadal waan ku bariyayaa waa jeclaan lahayn wiilkaaga inaan arko inaad isoo laabmo waan jeclaan lahay agoon ma baan ku soo koriyay abi waa noolahay laakiin agoon la iga dhacday kaliya waan iskaga soo rafaaday waayahay umad Soomaaliyeed ku caawinay hooyo muuqaalkan waa lagu sheer gareynaa meel badan lagu gaarsiinaa waa in salaamayaa idinkoo dhan wixii oo dhan baan salaamayaa islaam muslimiinta oo dhan baan salaamayaa wixii oo dhan baan salaamayaa ummadda islaamka oo ma aragta meel kasta ku nool waxaan doonayaa ninkii maqalkayga iyo muuqaalkayga arko in macnaha ii baad gobol isoo raadiyo hore mu raadis wiilkaaga baafin dhowr baa jeer baan diray oo caadi ah marka laakiin waxa macnaha la soo hadlay ma arkin dad buu u sheegay waryaa hooyada iyo walaalaada ay ku rafaasan yihiin hadda noo shaay maxad oolaad weysaa la yiri wuxuu yiri waan ka heystaa maarta baafin baan ka heystaa laakiin weli lama aanan hadlin buu yiri marka ay reer buu lahay caruur kale ku joogtaaday
يا عرور كل ما كوجوت قبضن يا إيجان ويل قبر كلي ويا هاي قبل كانت كل ساعته ها واقرتي مامو waxaa loo baahan yahay telefoon lagugu qoro shaashada oo wiilkaaga hadii uu maartay ku arko ka soo waco si fiican lambarka mikroon ka taqaana lambarka gabadha hadda taqaan isa xaray bis lambarkaas shaashada lagugu qoraa gilka isaga laga soo wici doonaa insha Allah dilay raalka noqdo sidoo kale waxaa ku soo wacay dad been ku sheegay oo ku dhahayo intee ka baxday saani ahayd kana ahayd waxa soo dhan waa been sax oo ku dhahay lacag ka hara wiilkaaga meeleblo jooga anaga ku soo tusinayno lacag soo dir wiilkaagu waa muuqaal ahaan kula hadlin si fiican oo aad isla hadlina si fiican yaa lagu qiyaamin insha Allah qeyr waxaan ku rajeynaa inaan ugu soo laabato hooy adigoo faraxsan insha Allah ilaahay kiis abasiiso wiilkaagii helay insha Allah lambarka sheeg furaha 5 waay 8 afar laba lambarkaas lagu qoraa guud ahaan muuqaalkan inta ayaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabeeyo intaan dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala